وين سلامي وين سلامي كل جيل ماركتي سلام سر قبل الجامعة سلام سر ولا شيء حمدي عيد مع واكو سلام علي وين سلامي كل جيل ما أنتي وحيالات كفر حضاني وحيالات كوقص شان وأتكلم حضان وين شيء هيا أو سومالي هراء وقصور دعي مركب حان رباه وين سلام هي كل جيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا في عام وين سودا وين هيا دات كم مشكول سنة شركة مدلوت وين سودا وين هيا بقولك بقولنا وكفر حسنة إلهنا وحن كرجينينا وحكو آلة إنه يكسر بحان شركة مدلوت ما أنت لين هاي marka waxaan leeyahay waa la wada fadhiyay nin kasta haduu daba dhilif yahay iyo haduu daba dhilif ahayn shirka mudullood maanta waa la isku yimid mudullood qof kama maqneen mudullood waa qabiilkuna qasab inuu shir dhigto saddex bareeyna soconaysa waana wada sugaynaa ilaahay wax qayr qaba inuu ka soo saaro meeshaas oo aayaha Soomaaliya ankee marka la tago galmudug waxyaalaha la sugaayo oo saaka afka lagu dhuftay ankee marka waxaan rabaa inaan warrior inii sheego wax kalena aan gadaal inii ka sheego warka aan rabo inaan inii sheego xalay gooray ahayd 11 o'clock 5 saac oo habeenimo aliyuundi shadiseera ayaa waxa dhacday waxaan tiriyay 13 qof oo qadiijo diiriyay ku jirto oo 4 ay niman ka yihiin sagaalka kalena ay naag yihiin oo telefoon iska duubahayeen ayagoo meel fadhiyo baatiyadoodii wata بعوينياشان كشيكين جرين وكوتشرين إن رفلي أدوق وحي أفري طبقف إلا شن يطبقف مركزي وحي دهن كونتون يلا بقف عنا هل ساعة كل جاي مصرتي شيء فقصلاي إن إلهين دور الشدة وحي ودا عيسى قف يعط يا واي ضد كساس نهاية وحويان ضد كي دولة دي حسن على غير لا شبي أو داتي ويا وحساء وهاد لهاية ماشي إن الدولة ذو كتير إنساسات كوجان كرتان ما أنت نوام نقلي سنشال وحكاها لاي شركة مدلوت أو لو يمد قبيل ولاله أو أروسده إن أيوه ذا أي معركتي كتشدان يوحي كسمين هيا قبل كبنادر أيوه وحي ما واحد رواقه في عضونه كنا عضوات دركت وحي المدلود ماشي فديي ولا ودي يستاجي أنت أنا سياسيين تنرحض كأهين مركا حالي نساسة هين قديشو وحي كم تهاي وزير ذي هوس إيمان هي حسن على غيره أو أفكار لو كلا جالي كم تهاي وحي حالي ماشي كوشري هينا عشان يتوقف معنا ضمن oo isku tilmaamay inay yihiin konton iyo laba qof oo dad kalena biri imaan hayaan sababta habeen bar loo shirahayo la isku soo arursadayna waa waxyaalaha uu ka heli karo qof maskaxdiisu ayna dhammayn oo ay jiran tahay waana maxamed cabdullaahi farmaajo maskax aan dhammayn oo jiran ayuu ku shaqeeyaa laakiin maanta mid baan rabaa inaan inii sheego aan ka soo xaliyay dad waaweyn oo 80 jir ah anu ma xasuusto laakiin waxaan rabaa inaan inii sheego sida xal la igu sheegay inaan inii ku sheego waxa la yiri cidda hawiye waa la sixray sixir kaana sixir hadda ah maahan soo ma xasuusataan 19 intiina joogtay 1969kii markii uu qabsaday maxamed siyaad barre 70kii markii la gaaray sanad ka bacdi ayuu maxamed siyaad barre wuxuu yiri waxaan doonaynaa qabiil inaan duugno soo ma xasuusataan dadkii ni joogay oo aqliga lahaa قبيل أيان دوغينا ويري حالي دات 80 كوين أيا يشيغي هدي للربو شركة مدلود مركو دماادو وحمد هوية أفكار لوغا دوبي ألا يري فديسو كهذا لا يري إن شاء الله ويني ولا شيء كذا وحال يري 1969 كي مركي أو قبصدي محمد سياد برا ودن كات 70 كي وحو يري وحن دوغينا وح قبيل ليري هاو قبيل كي أيو وحو سميا ليري جيت برأة oo qof bil aadan oo oo dhar ciidan inta loo galiyay la kafmay oo la wada kafal la wada mariyay ayay waxay yiraahdeen reeholudaag aan ahayna waxay yiraahdeen reeholudaag markii holudaag aan aragno waxyaalo badan ma dhisnaan jirin la yiri diritaminta waxaan arkayna dhinaca holudaag markaad ka fiirsato villa Soomaaliya ayaa saas noogu soo aadaneeda la yiri oo holudaag xaafada kore meesha guriga shaqaalaha hooyooyinka iyo ma laga dhisay ma aqaano waagi Birmaluuliya meeshaas meel iska xiran oo bacaadi aan jirtay sayidka meesha laga dhigana buulay ahaayeen oo dad barakacay ay deganaan jireen wax xasuusataan eylada iyo faamiladii soo barakacay ayaa deganaa waxa la yiri saas markii loo eego bila Soomaaliya oo howlwadaag ilbaabkeedaas ay saas u fiirisaa la yiri
ayaa intuu dhul weyn uu ka qoday marka waxaan sii weydiiyey odayaasha iyo dadka waaweynaa xalay waxaan iri see waxa loo sameeyey waa la karfanay tiri inta dhar ciidan military loo geliyay oo la karfanay oo la wareejiyo wuxuu yiri siyaad waxaan duugahayaa qabiil maalintaas hawiye afka la qabtay tiri ay 21 sano hawiye waxay daadinayeen dhareer sidii bahal wax raba inuu cuno dhurwaayo kaleeto oo dacadu ka daadanaysa dhareerku ka daadanayo markaasa waxa lagu duugay tiri dhinaca villada soo jeedka dhinaca howl wadaageed oo saas dirita looga arkayo villada markaas waxay tiri wax badan meesha kama dhisnaan jirinay tiri marka god baa la qoday godkaasina ilaa hadda waa ku duugan yahay tiri ninkii ay kafaneen oo maaragtay dharka militariga ciidanka loo geliyay maalintii far uu yiri siyaad barre qabiilan duugahaya maalintaas uu sixraa la yiri Soomaali ayuu ugu duugaan la yiri beertana wuxuu ku duugaan la yiri markii ciidka weyn la soo dhigay sayidka beertiisana saas oo kala sixir labaad loo geliyay dhulka hoose inta la qoday la yiri beerta dhexdeeda daad waxa weeyaan hawiye wax hadla iyo wax dhaqaaqa iyo wax mucaarada maxamed siyaad barre loo waayay tiri maalintaas ayaa hawiye afka la qabtay tiri qabiil ma una duugaynin qabyaaladna ma una duugayn siyaad barre sixir oo hawiye u duugayay tiri marka caliyadii ka dhamaatay hawiye 21 sano maxamed siyaad barre oo haystay maanta meesha haday tagaan ay tiri qodaan hawiye waa ka helahayaan wixii meesha lagu duugay u sheeg ha ka cabsanin hawiye inuu sixiran yahay siyaad barre wuxuu yiri qabiil baan duugahayaa qabiil ma jirin meeshaan uu tiri sixir hawiye afka lagu qabanayaa lagu duugay ilaa haddana meeshii waagi lagu duugay ayuu ku duugan yahay tiri waa in la falaa oo beerta sayidkan inta dadka laga kiciyo la falaa laga soo saaraa sixirada hawiye loogu talagalo ku jiraan yiri horta taas waa adiga qabanaysaa inuu hawiye sixiran yahay shaki kuma oo jiro Soomaaliya boqolkiiba 75 waa hawiye waxa wadanka iskale oo daga waxa soo hara waa 25% waa ogaadeen waa majeerteen waa waqooyi waa markii reality-ga laga hadlahayo waa dadkaas oo kale oo la isku dhoodhoobay marka maxaa laga rabaa inay sameeyaan maanta waxaad ogaanaysaan dad magaca hawiye kula wadaaga oo corruption-ka aad ugu dheereeyo oo waxa jira wixii xalay la sameeyay oo lacag ku qaatay oo doorasho iyo qof iyo cod ku waashay I like it inuu doorasho iyo qof aan samaysano oo qof kasta iyo cunug kasta oo maaragtay 15 jir oo muslimiina markuu qaan gaaro Soomaaliyeed oo codkiisa uu la bixi karo oo siin kara ninka uu rabo laakiin see lagu gaaraya waxa lagu gaarayaa wadanka oo dariiqyadiisu furmaan oo baabuur uu lagu mari karo ayadoo tirakoob la saaro ayadoo waxyaalo badan la sameeyo ayadoo waqooyi fadhigi lala furo oo la soo dhaweeyo ayadoo maaragtay al-shabaab wadanka laga move gareeyo marka taas ay lagu gaari karaa qof iyo cod oo Democratic Republic ay ku noqon kartaa Soomaaliya marka farmaajo wuxuu jiijiidahayo wax socda maahan waa ninkaad aragteen oo isdheeynay 1985 ayuu qurba u soo baxay qaxootigii wuxuu ka soo horeeyay 5 sano bal aan aragno horta ninkaan saan anigu inuu ku sheegay nin education la maahan waa iga rumaysan weydeen farmaajo nin tacliin la maahan waa iga rumaysan weydeen farmaajo maskax tactical lagu sameeyo oo wax lagu dejiyo farmaajo ma lahan la taliyaasha maantay shirka mudulood waxaad ka maqlayseen salaad cali jeello dhahaya anigu la taliyay maxamed cabdullaahi farmaajo anahay ma ii sheegi kartaa salaad cali jeello ila waa kala daran yihiin waxa uu sheegi karo maxamed cabdullaahi farmaajo salaada baroon hadii la yiraahdo niyo waa qaldantay joogso istaagahayo oo aamusayo oo golba inuu qofka dhageysto farmaajo waxna ma dhageysto marka waxaan leeyahay wadanka waxa ka socda foolla in kana qarin maayo runtii farmaajo wuxuu isku diyaariyay dagaal qoryo arursaday ciidankii saraakiishii Soomaaliyeedna wuu la hadlay waynan og yihiin intii uu la qudbeeyay weegii hore dhan ayaa la socota wuxuu yiri soo diyaar maahan inaan iska qabanno dadka dawladda ka soo horjeeda yes soo diyaar umatiina al-shabaab iska xoreeyno yes saasa la rabaa marka guutooyinka waxaan ka raadinayaa yiri nimankeena saraakiisha oo meesha fadhiya hadalka wuu dhiibay meeshaan dawladdu ma jirto walaalayaal shacabka Soomaaliyeed la rabaa in lagu tunto shacabkiina ma dareensano ilaa hadda wuu ku xadgudbay inuu ku xadgudbana waxaad ogaan kartaa nin isbitaal Madiina haysta isbitaalka ciidanka oo dhakhtar ah oo jaamacada ka baxay mayd qariye ma ruqsayn karaa oo nin kale ma ku tilmaami karaa meel horta inayna meeshu dawlad ayna jirin cadaalada saasaad ku ogaanaysaan
nin xun oo ciidan oo asaga abti waa intuu soo istaago wuxuu leeyahay professor hebel anigu waan dhakhtarkaas waan tuuray waxaan soo saaroon magacaabay dhakhtarka muxuu magacaabi karaa meeshaan askari maaha wax la magacaabaye waa nin dhakhtarehe mise ciidanka dhakhtar lagu magacaabo ninkaanu leeyahay mise caafimaad buu soo bartay meed qariye odayga xijaar la leeyahay taas inaad isweydiisaan inayna magaaladu ayna dowlad aynan oolin taas ayaad ku tashanaysaan waxaa kaloon inii wadaa barbarashinkii galmudug waxay ku jirtaa isdiyaarin haddii ilaahay nafta noo daayo bisha 15keeda saan shalay baynu ku sheegay galmudug waxaa ka soo bixi doona aayaha soomaaliya laga rabo in lagu sameeyo wax farmaajo raba kama soo baxayso waxay shacabka soomaaliyeed ay ka kooban yihiin soomaali ayaa ka soo baxaysa marka maxaa la rabaa in axmaarada ka shaqaysa bila soomaaliya ama wasaaradaha oo dowladda soomaaliyeed ay leedahay oo farmaajo uu keensaday kulli waxa ka wada shaqeeya waa axmaaro language soomaaliyan ku hadasha anigu dadkii aan u diri karo waan u diray ninka maaragtay isku babaac dhigay in maaragtay oo iska dhigo in maaragtay uu soomaali yahay waana wax laga naxo soomaalina maaha waana ila fiirsan kartaan asagoo mahdi guuleed oo hadlaayo maryamo la hadlaayo magaca ugu qoran uu yahay baaya qadase waxaa kaloo aanu haynaa fiisayaal fara badan oo uu kaga dhoofay Boeing International Airport ee ku yaalla magaalada Addis Ababa isagoo sita dhalashada dalka Ethiopia magaca ugu qoran oo baaya qadase waxaana ugu qoran inuu ka soo jeedo magaalada Gondar ee kilomita xaarada cadaymahan marka laga yimaado mahdi guuleed khadar amaba seetaa baaya qadase muuqaal ahaan markaad aragto wejigiisa marnaba shaki kaama gelin soomaalina waa aragnaa qowmiyadda xaarada magaalada Gondar iyo Bahadad halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa muuqaal uu ku gudbinayay luqadiisa hooyo ee amxaarada isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ sida loo buuxa maaragtaan waa kaas የተከበራችሁ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት እንዲሁም ክልል ፕሬዝዳንቶች የተከበራችሁ እንግዶች እንኳን ለኢትዮጵያ ብሔረሰቦች በዓል በሰላም አደረሳችሁ waa asagii marka waxaan rabaa inaan inii sheego xilo maryam markii uu joogay ninkan waxaa loo diray waddanka waqooyi waxaa loo diray hargeysa loo diray oo shaqo uu aaday ninkan af soomaaliga waa la wada bartay maanta waxaa isaga la shaqeeya ama xafiisyada maxamed cabdullaahi ka shaqeeya etoobiyaan kulli af soomaali ku wada hadlahayaa ka shaqeeya marka maxaa kuu cad soomaalinimadii inay luq ka baxday etoobiya ay ulajeeddo ay ka lahayd ay ku maamulayso oo laga dhigay ra-iisul wasaare ku-xigeen waagii xilo maryan ay socotay maanta oo adii joogay socotaa marka maxay tahay waxaan ka hadlayno isaaq anigu waa wacay meel kasta ayaan wacay waqooyi masawiradiisii aan diray waxaa la yidhi ninkaanu ma ahan cidda uu sheeganayo ninkaanu waa nin axmaara soomaaliduna nin reer waqooyi oo isaaq ah oo garxajisa anuu ii egyahay waa nin soomaaliyeed indhihiisa iyo jismiyadiisa kore ayaa ka garanaysaa ninkan inuu axmaar yahay tutal waa muuqataa laakiin yaa keenay weeyaan yaa ka dhigay ra-iisul wasaaraha yoo u shaqeeyaa oo u daneeyaa yay tahay dhaqaalaha la dhacayo soomaaliya uu ka qaaday oo guryaha ardisababa uu uga dhistay ilaa turkiya yaa siiyey waxaa siiyey maxamed cabdullaahi farmaajo oo walaalkiis abii u samaynaya faybar ayaa siiyey marka walaalayaal waxaan leenahay ragga noocaas af soomaaliga maanta waa kaa bajaan axmaaradu laakiin waxyaalo lagu kala yaqaanaa jirta indhaha iyo wejiga nin axmaara uma eka nin isaaqa annaku isaaq waa naqaanayo annakayna dhaleenay bal ma axmaar aan u egna waana la fahmayaa inaan soomaali asal ah marka waxaan ku leeyahay ninkaanu waagii xaylo maryan uu ka shaqaynahayay magaalada hargeysa ayaa loo diray af soomaaligana si fiican ugu soo bartay gelinka shanaad maca ogaadeenka degan waxay ku hadlaan xoogaa lahjada waqooyi soo ma taqaanaan marka meeshaan waxba yaa la isku dhoodhoobin maxamed cabdullaahi wuxuu keenay wiilal wada 20 jiraah oo dhalinyaraha Ethiopian af Soomaaliga yaqaana ayaa ka shaqeeya marka waxa ogaataa waxa ku dilahayaan kay Soomaali maahane waa Ethiopian askar af Soomaaliga taqaana la keeno Ethiopian diladoo dhan ayay wiilashii mareexan kula wareegsan yihiin marka la yaab male waxaan rabaa wax yar inaan ila wadaago ayaan dhaxdaasaan nin ay soo wacay dhowr jeer uu soo wacay namalgu qaba malgu qabin magaroob baa tahay midna ma ku dhahayo waa kaa helay uu yidhi markaasuu wuxuu ila galay inta bilaadan hadal lagu caayo markaasaa iri horta hore niyo lahjadaada waxay ila eg tahay lahjadan oo puntland
ما مجرتين هاي سوي ها مجرتين بانا سارياك هاي سوي ريم هاد بانا ساري هبل متقانا أو ريم هذا عانا أنا قانا سوي ما يا أنا قلت واحد إمبيش نينك محاول نقضي متقانا من ريحان ونقضي نينك من ريحان ونقضي نعد كيسنا واكدوبي وادوبي وهي السجنة وحكست ولا سككي بريستا ما عرفت recording voice أيام لسودك سدا نكاس هدي هذا الكيس يفرفر كيس أو بطو هل كان بايني صدق هيا نكوين وحو كهاد لا يهداد مغشان قفون الأقونين نحدم باكو قد عيسى ومنطقة مرة مقالني بيكتهاي ما أقل حما وقيسي لما يقانو مركا داد نوعاس أيا كويدي جيرا دادك سوماليات نمان وضا فدراء أيا كبوحا شعب سوماليات وانا وشيغو وحان إيران وحاسبان هايان marka dad noocaas ah buuxa saas waa inaad ula socotaan marka maxaa kale oo rabaa inaan inii wado marka sheekadu waa cakiran tahay xal qadiijo diiriye oo darkiisay halkaas ayadoo baatigeeda huwan waxay ku dhaqaaqday qadiijo diiriye waxay ahayd naagtii saaxiib dhow la ahayd xasan cali khayre aan uga maxumi danaheeday ka fikirtay qof kastana asaa ikhtiyaar loo wuxuu sameeynahay laakiin saaxiibtinimada qofka aad saaxiibka la tahay saaxiibka laba nooca midna waa qof aad rajo ka leedahay oo ma aragtaad midna waa saaxiibtinimo dadku bilaadanku walaal camal ay ku saaxiibaan isku aaminaan weeyaan qadiijo ninka la leeyahay xasan cali khayre saaxiib bay leeyahay waad xasuusataan subax kasta gurigiisa tagi jirtay quraacdiisa ayadaa karin jirtay qof kale kuma aynan aamini jirin maxaa keenay inay dhabarka jabiso ilaa ayadu waa wasiirada hoos yimaada xasan cali khayre markii maanta uu daatay intoona dhicin ka hor ayay abaabul waxay ka bilowday meesha dhexdeeda marka waxaan leeyahay qofku waa inuu mowqif leeyahay oo qof islaana yahay oo qofka ku aamino oo walaalkaa inaan la qiyaamin shaqo waa la helaa magacna waa la helaa laakiin maxaa lagu helaa waa markaa daacad tahay marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed ilaa sixirkaas hawiye loo duugay 1970gii aad ka soo saartaan dhinaca afka ku soo haya dhinaca howlwadaag markaad daarishinka howlwadaag aragtaan halkaas inaad ka soo saartaan weeyaan waxyaala yaryar oo kalena waa iska jiraan oo badan shirkan mudulood farmaajo wuxuu isku dayay geed dheer iyo geed gaaban uu u koray in uu baabi'iyo laakiin shir qabiil leeyahay nina ma baabi'in karo shir mareexaan nin hawiya iskuma dayo inuu lugta mariyo shir daaroodna nin isku dayi karo hawiya male in la soo dhaweeyo keliya weeyaan ayakaa shir kale hadday yeeshaanna qofka walaalkaa waa lagu soo dhaweeya laakiin wanaag muu geysta cidda daaroodaa laysku haystaa maya marka maxaa soo dhexgeliya cidda mudulood waa idib darro soo maa iyo nimanka yaroo caadaqaatooyinka ma la siiyo xoogaa gunnada saada u taqaanaan oo gunnada qaata marka anigu taasaan inii sheegahayaa farmaajo wuxuu isku tabaabusheeyey inuu dagaalamo maanta iga qoran dagaal ayuu diyaar u yahay ninka lagu leeyahay salaan cali jaalle wax kale markuu waaye inuu ku hadlo wuxuu yidhi xasan sheekh 6 biloodaa loogu daray sheekh shariif waa beentiis hal sanaa loogu daray markaasaa lagu meesha la wada istaagay ilaa uu cali mahdi soo istaagay oo dadka dejiyay horta halkaanaan ka salaamaya cali mahdi ilaahay khayr ha ku siiyo khayr iyo wanaag ayaan kuugu hidaynahayaa salaamu calaykum da lifeaan ku jiraa hay haye haye صح صح meesha waa saad u sheegtay siliga madaxtooyada meesha hadda madaxtooyada ha siliga iyo madaxtooyada beer waa taqaanaaye ayaal xamadaaye waa deganaa beer baa u dhexaysa beertaas weeye meesha marka qabriga birtaa oo maaragtay lagu aasay waana la ogaayo markii waa la ogaayo waa la sheego dadku kala marsan jirta waa sixirkii qabiilka lagu aasay baa layidhi marka hawiye kaliya maayna soomaaliya oo dhan bay ahayd oo afka la qabtay oo hadda bedel puntland xoogaa baysan sixirka iyada u jeedinaya jubbal iyo kuwaas isaaq waa kuwaa damba kacay صح annaguna saa u sheegtay diifka la laalaadinayo waxa la waayo maartay taas horta waa la siibtay صح waa aad baa u mahadsantahay kow haday raganimada dee quraanka iska mar kalena waa loo aasay weligeedna waa loo wada dad
akhrisanayaan waa loo sheega hadday wax samaysanayaan ها إني قرآن soomaaliya oo أخرسها dhan baana soomaaliya oo dhan baana aasnayda aaska haddii la iska bixinayo waxa weeyaan waxaa la yidhi nin la falay ma falmi waayo kii wax falayna ma filmeen waayo صح qofka wax fala filmooba u dambayso taas weeye صح teeda kale eeday waxaan la soxana ma kugu soo galay qadiija diiniye waxay xalay baan markii sameynaysa eeday qadiija diiniye horta qofka ma xishoota eedo ma xishootaa la yiri qofba waa saciid qofba calkiisu dhacaa oo qaranjaba ها qolo kalena maanta sheego ma dhawo waa ayada iyo odagaan muxuuha muuday ها iyo mursal iyo muuday iyo qadiijo eedoy waxay noqdeen caleen geed ka soo dhacdoo qallashay magacoodii sag hal mar baa dhulka ku dhaceen wallahi been maahan hadda eedo markaan magacooda soo qaatay waa jariiro ooday jariiro ay jajirta waxa ay weli ma nool yihiinoo magacoodii baa weli la wadaa marka ayaga soomaaliyay dadka mar baa sharafkoodu dhacaa sharafkoodii qoladaas waa dhaca والله بين ما dhag dhulkay ku dhaca soo noqon mayso صح iyo dan dadku wuxuu lahaan jiray sawir xoolaha la raacsado oo qawsaan قوزار mataqaanid baa la heliyaa مم. qawsaan مم. qawsaan wax la yidhaahdo صح magaaladana waxay idii ahaayeen hadda matel waa hore ها intaadnaa dhalan ها horaa ceel buur guriga xaaji cumar shidibaan annagoo yaryarna la keenay xardeedna laga keenay هاي aabaha waxaa u joogi jiray niman waardiye ah صح waardiyaha qaarkoodna qawsaan baa la yidhahdaa ها قوزار اللي يرى haa xoolaha kuwa ilaaliyana qawsaan قوزار اللي يرى يكنا marka qolada maanta isku sheegaysa baarlamaanka oo qadiijo diiriye iyo muday iyo وقوزار mursal iyo waa qawsaaro weeye waa qawsaaro sharafkooda iyo cadantoodii way dhaceen oo waa qawsaaro laaluushka la siiyo iyo صح. iyaga wixii la mid صح iyo amxaarka iyo مم. amxaarka iyo waa qawsaaro qawsaar waxa weeye waa ari rabaa oo iyo lo rabaa oo balka loo daadinayo marka lagu aan qiyaaso madaxayda صح ma faham ها haray waana arkaya labada shir waxaana arag oo ka seexday daawad waa kuli weysay waa isku seexday Ah. shirka gudulooda waa arkayay مم. laakiin shirkan qawsaarada qolada qawsaarada martaba qadiijo diiriyaha dhiini eday waa ku baryaya ما دهاي ايدو شرفتي مرضي بوا كان عضي بهبين بركي waardiyaadka ama waardiya ceelbuur ay guriga waxa weeye istaafyadoodi waardiyaad istaafka waardiyi wey guriga ها وردي قوزاردي فرماشي الى لنا ايواي war kuwa farmaajo ilaalinaya maana waa kuwa kale waa kuwa laaluushka qaato oo aqalka lagu soo kafkuulayo ها qawsaan waa qawsaan gelida kuwa ariga raaca oo isdhiqin oon xishoon صح. oo ariga kutadiisa iyo geela iyo shilinta ka qoran xishoowe صح waayo maalin bar nooc bay la soo istaagayaan wejigoodii saliidtii baa ka dhammaatay صح saliid male sharaf male dhulkay ku dhaceen صح taasna halkaasaa loo gudbaayaa galmudug baa ii soo hartay هاي hadalladaas tiri baan qaar soo filgaya maanaya khayrullah muslim هاي nin baa yidhi baa leeyihi inaad qoro rabbi koog ragna kooga dhafroog هاي bal waa arki doonaa wiilka tegay waa adigii yidhi galmudug waa madax bannaan tahay waa dawladda soomaali bay midaynaysaa aniguna waxaan u malaynayaa qawsaarka inay ku jirto oo qawsaarnimada la isku raacay baan u malaynaya hadda ninkaan sugaysa fiican wadaa sharaf leh ciidankeedii dariskeedii ها iyo wanaageedii iyo wixii lagu yaqaanay daris wanaagii iyo wanaag wanaagii iyo ciidan wanaagii iyo nimankaa yaryaroo mataqaanaa meeshii loo jeediyo oo fiican aadaya صح waa yes markaasi baan ka hadla صح. markaasi. laakiin mar haddii maamulku kaa xumaado oo maamulku uu noqdo lugteeray hadba ninkumaan مم. ya oo ها qolii maantay u carlaalaadsana uu maaragtay sidii lugaadaba laga daa'im lagu leeyahay آه. waa arki doonaa إن شاء الله hadalkana waa kaa fiilayaa إن شاء الله. إن شاء الله يا جماعة أنت إن شاء الله martaba qadiijadeedii haddii mursal haddii ku daydo qawsaanada قوزار ها بالله ما هنا قوزار روير ilaahay wuxuu yidhi eedo ilaahay wuxuu yidhi maandooyo waxa meesha qajka ku jira waanse ilaahay wuxuu yidhi ninkii laaluushiyo dhiba qaato qiyaamaha iska kaycin idka ilaahay iska celiya صح rabbi iska celiya soomaali ku tumatee wixii laydiin dirsaday
waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aadan kugu mahad celinaya iyo damcaan waa maqasheen meesha qabiil markii la yidhi waa la duugayaa saas loogu duugay soomaali in afka la wada qabto wax adla la waayey marka waxaan rabaa inaan isweydiino waqtiga haray oo u haray maxamed cabdulaahi farmaajo uu raadinahayo xilligan intuu rag soo adeegsado iyo dad inuu yidhaaho qof iyo cad joy bahdil intaas ka badan oo shacabka soomaaliyeed loo geysan karaa ma jirtaa waa maya sida anigu aan qabo darkee farmaajo wuxuu ku wadaa shacabka soomaaliyeed bahdil dhaqaale xume dariiqyadii oo ka xirxiran ayakii oo weliba canaan askartii amar la siiyey inay dilaan shacabka soomaaliyeed hooyo aan la dhaafayn islaam waayeela la dhaafayn 70 jir odaya aan la dhaafaynin oo la leeyahay adeer gobolkaadii aan dhacay gadaal u noqo marka ninkii gobolka banaadir u dhashay oo intaasoo dhan farmaajo amar ku bixiyey ciidamada wax magaratada ah aan ka hadlayaa anigu ciidan kasta ma dhahayo ciidamada aanan damqan oo wax magaratada ah oo shacabka soomaaliyeed baabi'inaysa oo farmaajo amarka ka qaadanahaya isla dadkii loogu talagalay inay xaquuqdooda ilaaliyaan oo madaxweynuhu inuu dadkii ku dirahaya ina fahansaneen taas ayaan waxaan rabaa barnaamij weyn inaan ka qabto ciidamada soomaaliyeed waxay ciidan u yihiinna aan isweydiino ilaa maanta waad u jeedaan diyaaradda turkiya waxa ay ku samaysay sweden iyo dadkii ka tegay yurub UK oo tegay istanbul in diyaaraddii laga wada reebay oo la yidhi nin soomaaliyeed oo muqdisho ku dhashay oo cali oo ku dhashay fiisa waa inuu soo qaataa ama laga soo loo soo diraa warqad invitation heerkaas ayaan gaarnay heerkaasna waxaa dadka gaarsiin kara keligii mataliyaha aqliga aan lahayn ninkaanan kalsoonida isku maqan oo dhagaha wax loogu sheego oo keligii taliyaha ah ayaa amarka noocaasa soo bixinaya adduunyada markaan fiirino wadamadii fajiismuhu ku haray oo horta reere yurub iyo meel kasta iyo waa laga dhameeyey raashka asaga naftiisa hadda modification badan ayuu sameeyey sidii hore ma ahan maanta anigu tigidaan inta ka goosanaya diritaminta airbortka raashka aan ka qaadanaya gobol kasta oo raashka kamid a oo aan tago soomaaliya $50 oo ahaa fiisaha markaad airbortka muqdisho aad ka degato 60 baa laga dhigay shacabka soomaaliyeed waa dhaqaale waddanka wax loogu qabanayo raalliyan ka wada noqonay oo hadalka ma aanan keenin maanta maxaa keenay farmaajo inuu aniga iga lacagaysto safaarad aan soconaynin oo yidhaa fiiso ama warqad invitation ah la soo qaato marka diyaaradda turkiya ulajeedadeedu maxay tahay marka shacabka soomaaliyeed aan rabaa inaan la hadlo waa inaad diyaaradda u bedeshaan imaaraad markaa u bedeshaanna aad ka degataan hargeysa 2 habeen aad jiiftaan hargeysa diyaarad ka raacdaan aad muqdisho aadaan marka taas inaad soomaaliya dhexdeeda ka timid ayay kuu caddaynaysaa marka nin kastoo double passport citizenkaada qaado soomaaliya tahay farmaajo ayaa ku barhaya wuxuu rabaa meel uu $100 ka soo jiido ayuu u baahan yahay intuuna ka kicin farmaajo waa nin fashilmay shacabkiina ku fashilmay aaminkii lagu aaminay waddankana ku fashilmay ciidankii soomaaliyeedna ku fashilmay waa nin dhagtiisay afkiisu aynan ismaqal waa nin aanan xishoonin qofku markuu xayo leeyahay ayuu xishoodaa laakiin qofku markay xayadu ka tagto xishood wax ma tarahayo wixii hadda eeddi sheegaysay oo kale xalay habeen barkii 11 waxay qabinahayeen 12 qof maarkaysa afar nimankeed inta kale naagay ahaayeen dul taagna qof iyo cod intee ka dhacay qof iyo cod muqdisho dhexdeedayna ka dhici karin bakaaraan caadi lagu geli karin maxay taa waxaan ka hadlayno marka waxa waaye dadka markay xayada ka tagto oo dharka aad dhigato oo wax kastoo lagu yidhaha ay waxba kaa taraynin xishood meesha ma soo gelahayo ilaa waxaad ka xishoota ma jirto allana ma taqaanid aadamana risbad ilaahay unta uma lihid marka waxa waaye farmaajo waa nin xayada ka tegay balkee haddii aynan xayadu ka dhiman lahayn ninkaas wuu xishoon lahaa asaa yaxyixi lahaa wuxuu ku hadlahayo markuu dib u dhagaysto asaa yaxyixi lahaa qofka waxa fiican wuxuu ku hadlo inuu isdhagaysto hooyadiisoo qalday sodohdiisoo qalday naagtiisoo qaldahayaa magaceeda seen macalin haddii la weydiiyey naagtaydii oo iska kaan leeyahay marka ninka noocaasa qofku markoona xayo laheedna wax qarinaaya male ogaada weligiin ya allah waxaad ogaataan ilaahay xayada nagama qaado haddaan shacabka soomaaliyeed nahay xayadu xishoodkay ku xiran tahay waxyaalo badan bay ku xiran tahay marka waxaa la yaab leh oo soomaali inay isweydiiso la rabaa ciidamada soomaaliyeed yay ciidan u yihiin ma maxamed cabdulaahi farmaajo ciidan u yihiin mise shacabka soomaaliyeed iyo calanka soomaaliyeed iyo ciidda soomaaliyeed ee calan u yihiin taas ayaan waxaan rabnaa inaan program completa ka samayno
sida odayga mayd qariyo kaleeto waad maqasheen wuxuu ku dhawaaqay waataan markii hore inii sheegay inaan kusoo celiyo maahan waa ninka dhakhtar dhan oo caafimaadka inuu asagu magacaabo ku kaleetana u rido ma inta awooddaas uu ka keenayba maba lahanbe dastuurka soomaaliyaba kuma qorne marka meesha inaan dastuur lagu dhaqmaynin ya ninka mayd qariye la leeyahay ya oo xijaab oo weliba lala socda historiga anigu hadda halkaan waxyaale aanan ka dhihi karinaa jirta haddaanan xishoonaynin anigu lacag baan dhigi lahaa madaxiisa korkiisa waa igu wallaahi waa igu bilaahi waa igu tallahi mayd qariye lacag baan kor saari lahaa laakiin ilaahan raalli ka ahayn inaad sababato wax aadan shaqo ku lahayn may fahamti laakiin danbayba u dhacaysaayo soomaali ayadaa mayd qariye iska qarinaysa intaasoo ilmaha nalaga dilay ilaahay ilma uma reeba asage intaas oo ilmaha oo ubada oo la dilay ayuu mas-uulka yahay waa ninkii yidhi hasheeginina maydka qariye waa ninkii guddoomiyihii gobolka oo ka sarreeya asaga la yidhi abtigay amarka qaado anigu ninkaasna waa la yaabaa ma jecli anka inaan ka sheekeeyo cumar finish marka caloosha ay xanuunaysa maanta waa ooya asoo mudullood dhex fadhiya markaan arka marka waa nin mudullood waxba ma dhihi karo laakiin inuu shir mudullood fadhiistaba xaq uma lahane ninaan awooddiisa iyo ninnimadiisa iyo aqligiisa aanan ka soconin oo u talinahayo mayd qariye asoo ka awood sarreeya loogu cagijugleeyo waa wallaahi anigu si yaasmaan ma noqon karo waa lay dilaale maahan yaasmaan ma noqonayaan af lagu aamusana malihi waa la iqaarijina keliya maahan markee sababtoo ah ilaahay qur-aankiisay ku qoran tahay wixii runtaa ka hadal waxaan run ahaynaa ka hadlay marka mayd qariye soomaali caruur hooyo dhaaxaa goblan uu ka dhigay hooyo dhaaxaa maydkeedii oo eeyaashii iyo mukulaalaha hilbiheeda cunahayeen ay arkeen ee ooyeen markaasaa maanta lagu leeyahay nin dhakhtar oo casilay nin dhakhtar oo yeelay marka taasay ku xiran tahay waxaan rabnaa keliya leh inaan ka hadalno ciidanka soomaaliya ma istaahilaan inay ciidan noqdaan mise in ciidamo cusub la qaro oo la kala diro waxa meesha joogo oo dhan taas ayaa waxaa loo baahan yahay in aad looga wada hadlo iyo wixii maxamed cabdullaahi farmaajo uu keeno qabiilka ku keenay in la wada diro ciidamadii hore soo dhaawacma la haysto ciidamo cusub oo isku shaandhays oo federaala la wada qoro tababar cusub la siiyo markee waxaa ku cad inta maxamed cabdullaahi la shaqaysa inay yihiin ciidan soomaaliyeed inaynan ahayn ay yihiin ciidan asaga u go-an kuwa dariiqyada jooga uu yidhi farmaajoha la iisoo boobay shacabkana waad ogtihiin mootooyinkii waa la dilahayaa dariiqyadiina waa lasii xira masaakidan hadda aan kula hadlayo maanta shalay iidda meel kale maraa la waayaa la yidhi xamar maxay tahay marka waxaan ka hadlayno maalin kasta lala fadhiyo lala qaylinayo marka taasay noqonaysaa caawaanan ka bilaabaynaa ciidanka soomaaliyeed ma istaahilaa inaan ciidan ka dhigno iyo inaan kala dirno ilaa annakay ciidan noo yihiin hadday annakina sharfi waayaan waa inay iska baxaan ciidamadu waa inay iska baxaan marka taasay noqonaysaa ma farmaajay ciidan u yihiin mise shacabka calanka iyo ciidday ciidan u yihiin horta taas in la kala saaro waayo finki aana la kala saarin labadaas kelmadoodna wax soconaaya male markee madaxweyne isku dayaya inuu ciidamadii u isticmaalay shacabka uu ku baabi'iyo waa waxaan la qaadan karin waddanka waa waxaan la qaadan karin oo lagu aamini karin calanka soomaaliyeed ciidamada maanta jooga waxaan ogahay rag military oo aad u culusaa jooga waa joogahayaan kuwaasu niman waxaa jira waddanka keliya loo soo tababaray oo militariya laakiin blaiska in dib loogu iyo qoladan ayaguna dharcadkaa iyo in dib markee heer waxa la gaaray guryaha in habeenbarkii la galo oo la boobo yaa waaye waa qoladan dharcadka la yidhaaho ciidamadan dharcadka oo blaiska oo c i d da hoos yimaada oo securityka in beeshiga ay raadin lahaayeen al-shabaab habeenbarkii ay guryaha alaab u garaaci lahaayeen habrihii bay 2 shilin ka furanhayaanaa la yidhi taleefanadii baa dadka laga qaadanaya xalaa u dambeysay xaafadda holwadaagay ka dhacday marka maxay tahay ciidanka aan ka hadlayno maxay tahay waxa la sheegaya marka aaminka farmaajo uu ku hayo waddanka maxay tahay asaaba diyaaradihii soomaalidii waddanka u dhalatay oo asaga ka soomaaliyeysneed asagu gadowga ka soo jeedaayo kuwii muqdisho iska lahaa ayaa waxa lagu celiyey istanbul iyo sweden oo la yidhi waa in martiqaad laguu soo diraa anaa waddankaygii martiqaad la iga soo diraa wallahi waxyaalo lagu qoslaa jiro oo faniya adinkaa yaabinina waxyaalo lagu qoslo oo faniyaa jira marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego diyaaradda turkiya ha la faaruqiyo maxamed cabdullaahi farmaajay la shaqaysaa waa beelooyin nahaaba markee fiisaha airboortka muqdishoa laga qaataa adduun weynahoo dhan airboortka laga qaataa ilaa hadda bil ka hor waa laga qaadanahayay $60 farmaajaa guranahayay
oo immigrationka marka maxay tahay maca ciidanka laguma masruufo oo looma aruuriyo wixii immigrationada ka soo gala ciidamada meelay aadaan lama yaqaan mayd qariyo kale jira waa qaatay lacagii waa saaray asagana waa fahanteen samaan gurigaan arkay ayaa istanbul looga gaday soomaada arag mayd qariyo guriga loo gaday ma aragteen oo turkiya ku yaala maxay tahay wax laga hadlayo marka meeshaan dad danaysta ayaa jooga ma ahane dad dowlad inay hayaan raba nooma joogaan annaga marka waxaan rabnaa ciidamada soomaaliyeedna inaan ka hadalno barkee ayadaa u badan in laga hadlo ciidanka soomaaliyeed ciidankii waxay noqdeen wada corruption farmaajaasoo raba u maamusha ciidanka waxa hadday arkaan madaxweynuhu inuu qaldan yahay inay ka hor yimaadaan excuse me madaxweyne waa qaldan tahay annaku dili mayno shacabka soomaaliyeed alloora markaasaad ciidan noqonaysaa shisheeye hadduu soo weerarana inaad waddanka daafacdaan laakiin ciidankii aan baadaynaa habeenkii guryahan ugu dhacaynaa wax la qaadan kara maaha waana wax laga xumaado aadna waa ugu doodi jiray bilihii hore uu soo galay ciidanka soomaaliyeed inay u baahan yihiin cunto daawooyin dhar wax kastay u baahan yihiin xaqayna u leeyihiin waxay dowladda ka baryahayaan male bakee ayaku ciidankii dowladda weeyaan marka waxaan rabnaa ciidamadan sidii loo kala saari lahaa in la ogaado ciidamadii gadaal laga qoro o dhanna la ogaado farmaajo uu qoray oo kulli laga takhalluso maxaa kuwii eletray ay soo tababarto o dhan kulli laga takhalluso farmaajo waxaan ogahay hubab inuu soo celiyey uu keenay xamar oo xamarna ka abuurahaya dagaal marka waxaa la yidhi ninboo naftaa nebiga ummaddaa farmaajo maxkamad buu ka cararhayaa laakiin waddanka hadduu dagaal ka rido meel kasta uu taga ayaa lagu maxkamad lagu saaraya farmaajo ha ogaado saas waa inaad ula socotaan anigu intaasaan idin leeyahay waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo mudulood shirkoodana aad baan usoo dhaweynaynaa waanan ku faraxsanahay waana soo dhaweynahayaa mideeda kale waxaan rabaa shacabka inaan la wadaago oo kaleeto fiiri dadkii xalay quuqleynayay oo habeenbarkii soo galay ayagoo baatiyadooda huwan iyo niman macbuusadooda wata anu meel ka yimaad jaaday kasoo wada kaceen aan dhihi karaa maba dhihi kara wax baarlamaan ka shaqeeya maba een baclalay wateen ayaga dhan ma marfishay fadhiyeen maxaan ka aqaanaa marka waxaa kuu cad meeshu inayna dowladu ka jirin khayra hadduu dhacay ninka etoobiyaanka waa dhacay oo waxa dhacay khadiijo diiriyaa dhacday oo waxa dhacay kulli wasiiradii asaga hoos imaanayo o dhan aa daatay go-aankay ayaku gaari karaan ay dabada ka wadaan maxay tahay marka waaba dhaceenba maba jiraande waa in baarlamaan cusub iyo wasiiro cusub la sugaa marka maxay tahay go-aankay gaarayaan waaba dhacdayba khadiijo waxba kama ahan maanta muqdisho waa markaa runta inii sheego marka maskax jiran ayaa bila soomaaliya fadhido la yidhaaho farmaajo maskaxdaasay ku socdaan adduunweynihiina waa la tusay cajeelkii ay xalay ku hadleenna waa la qaaday ay kaftanka ayaku ka wadeen iyo forjada ay leeyihiin qof iyo cod ayakoo wada qaawan oo baatyaal wato daamanka iyo afkii muuqdaan marqaamka ka muuqda haddaa aragtaan caloosha ayna xanuunaysa waa la wada aruuriyey qaramada midoobeyna waa loo gudbiyey halkaana waa loo soo gudbiyey ingiriiska time number 10 iyo kulli iyo yurub iyo waa lasoo wada gudbiyey ilaa qaramada midoobey inta keliya oo soomaaliya fadhida waa laakiin inta kale baa emailaa lagu wada faksigareeyaa ninka etoobiyaankaana meel kastaa la gaarsiiyey marka isaaqa waxaan leeyahay thank you anigu waxaan helay bad of certificate-ka asaga uu ku dhashay inuu etoobiya ku dhashay joojiya marka aad leedihiin ninka naag arabaa dhashay arab meel yaa looga dhicin arab yaana meel looga dhicin waqooyi naag araba waxay dhashay saas uma hadlo naag araba waxay dhashayna tuug ma noqdo nin garxajisana oo ciidagalaa qof uu dhalay xaaraan shacab soomaaliyeed ay leedahay ma cuneen ninkaani waa etoobiyaan warqadiisii dhalashadaa la hayaa waa xabashi xaylamaryan uu u shaqayn jiray waa la wada ogyahay waqooyi uu ka shaqayn jiray oo loo soo tuuray haddaa rabtaan la xiriira waqooyi af soomaaliga wuu kaa bajaa gelinka shanaad ilaa etoobiya kulli deedaasaa lagu wada hadlaa waqooyiga marka waxaan leeyahay annaka waxaa la yidhi gabrihoon ujeednaa waxaa nala kaga dhigay ra-iisul wasaare ku-xigeen waa soomaaliya waa ciidagale hadda waa gabrihii oon ujeedno waxaa nala ku cameeyey waxaasna waa dabadhilifka maxamed cabdulaahi farmaajo inuu etoobiya oo intuu kasoo aruursado shacab oo shaqo ka siiya bila soomaaliya kuwii xaqa ahaana intuu canshuurtooda qaato inuu ayaka ku biilo horta reer banaadir waa adinkaas yeelay ilaa meel kale canshuur laga qaado male aan xamar ahayna moogtiin lacagta adiga lagaa qaado gabraa la siiyaa gabra yaa waaye ra-iisul wasaare ku-xigeenkii iyo dhalinyaro kaleeto ro etoobiya oromaaha af soomaaliga taqaana dadkaas ayaa lacagtiina etoobiyaan baa lagu biilaa iyo gabro saas weeyaan taasina abiy aad buu ugu mahad celiyey oo yidhi thank you ihay ninkaan waa nin qaali nagu oo annaka xaggeena sirdoon ah uu yidhi bal ilaahay inku dhaarkay ka warra waa sirdoonka etoobiya lagu leeyahay ninkaas mahdi lama dhaho waa magacuu la baxay markuu waqooyi joogay
ninkaan shaqa uu ku leeyahay isaaq iyo cad yar uu isaaq ku leeyahay male waaba laga cararayaa wejigiisa markaa aragtay inuu xabashada etoobiya uu yahay waa garanaysaa dhiiggiisaa dhalaalahaya dhabaladiisaa hadlahaya marka warqadiisii dhalashadaa la keenay aabihii magaciisaa la keenay isaga magaciisaa la keenay hooyadii magaciisa saddexanaa la keenay markaasaa layidhi maya naag arabahaa dhashay arab yaa layga caayin daan dhagax ma dhalo waxaasoo kaleete daan dhagax ma dhalo waxaasoo kaleete wax ka fiican uu dhala ahmaarana ma dhalo daan dhagax marka dadka yaa la isku qaldin waana ini salaamahayaa walaalayga soomaaliyeed caawaan is arkaynaa youtube-ka la socda waxaan ku jiraa waa rubisaac hadaladeyda waa soo gabagabaynaa hadda kabacdi inayn 15 to 20 ay isku soo xiraan aan rabaa oo wax muhiina mee wax kale aan ka hadlin markaasna ini wada salaamo youtube-ka gambaleelka hala furto commentigiinana soo badiyo waan rabaa viewskana hala saaro thank you very much aan leeyahay kana ha loo hagarbaxo facebooka labada dhinacba waa in kala socdaa marka adinkana waxaan leeyahay maasha allah tabaaraka khayr allah ina siiyo kulligeen special halkaan caasho cilmi qoraaladaadaan akhriyaa moogtaa aad iyo aad adig iyo dad badan wallaahi bilaah aad baa idinku mahad celinayaa aad iyo aad baa idinku mahad celinaya habeenkii aan akhriyaa youtube-ka qoraaladiisa waxaan ku leeyahay maasha allah tabaaraka allah ilaah igama kiin qaado ilaahayna waxaan ka baryayaa sanadkan sanadkiisa dambe anakoo caafimaad qabno ilaahay inuu isku kaayo keeno saan oo kaleeto aan dowladda iyo ololaha aan ka mid noqono oo aan gees istaagno hadda waxaa haran waa bilooyin waa dhammaad august aan ku jirnaa september october november december waxba ma harin 4 biloodaa harta kaamilo moogtaa marka 4 biloodna iyadaa ordaysa waa iska sugaynaa waxaan laakiin in ku raaligelinayaa aniga dadka ila socdo iyo fiirsada qof iyo cod wax la yidhaaho waa dad rabsho wada oo lacag lagu siiyo lacag bay ku qaataan 2 kunaa loo tuuraa wallahi inaana been sheegin 2 kun dollar loo tuuraa kuwii xalay lacagtay ku marqaamayeen loo wada tuuraa ay qaadka ku cunaayeen marka meeshaan doorasho dadban sidoo rabaha ka dhigay dadban in la sameeyo weeyaan Soomaaliya waxa way safety ma jiro qof iyo cod haday ahaan lahayd qurba joog oo dhan aan noqonaysay airportku hadda ka xayiray soo maaragtaan ayadoo fiisii aadan galin bila fiisa oo warqad fiisa lagu siinayo ama baasaboorka lagu dhufanayo ayuu diiday marka nin aqli la maahan taas inaad ogaataan waaye meesha madaxweyne kuma haysaanay dictator raba inuu Soomaaliya ku tababarto ma aqaan adduunyada meel kale soo xukumi doonayaan u maleynayaa alla arki doona farmaajo waxa ka qaldan ma rabo inaan maxamed siyaad barana ku mentalo boqol odayga la qaatay oo ilmaha iyo dhalinyarada iyo hooyooyinka iyo u fiicna marka ninkan waa nin turfatoora oo tuugo ganga Mareykanka uu ku soo bartay taksiila ahaa marka ninkan waa la iska qabanayaa waxbaha u bixinina farmaajo dawladiisu fashion farmaajo oynayo maxkamad taaganna waad arkaysaan ilaahay isinkiisaan been sheegay farmaajo maxkamad taagan oo oynayo ma yaqayro korka aan ka saarno qadiijo diiriyay anigu waan kula talinayaa xasan cali khayre wuxuu yiri cigaal shiilaad uu jira wareedama waxaan ku maleeyo iyo waxaad igu noqotay iyo waxaan loo noqon doonin qadiijo adduunyadu maanta kaliya maahan khayre wuxuu ku maleeyay qof fiican inaad tahay laakiin waxaad ku noqotay qof xun wuxuuna u noqon doonin noocyadii naas iyo dad lamida oo maanta dawladda farmaajo ku jira inuuna dib dambe u aaminayn oo waliba la yiri qadiijo sida la yiri weeyaan ana ilmaha waxa la yiri qadiijo waxay tiri madaxweyne wax allaale wixii ka dhacay wadanka u kiis ee korka ka saar ani aad baan uga xumahay barkay anigu waxaan ogaa oo gabar ay aad iskugu dhawiin qadiijo diiriye oo anigana aan saaxiib nahay ayaa iga sheekaysa qadiijo diiriye tir waa nagri magaalo aad u fiican ay tiro miskiina best friend way yihiin tir xasan cali khayre marka maxaa keenay anu gabadhaas kelmad been kuma aqaan hadalka ii sheegtay qadiijana taqaan marka maxaa keenay inay maantay xasan cali khayre ku soo rabto wax kasta ayadoo og farmaajo inuu injineeriso dilay oo khayre banaanka ka taagan yahay mararka qaarkood waxa la qaataa dadka ehelkaada iyo hilibkaada inaanan afka lagu gelin waxyaalo aanan cuntamin ay jiraan la cuni karin ayaa jira qadiijo waxay ogeyd injineeriso oo mayda waa naagta xaaskiisa caruurtiisa ka celisay oo tiri looma geli karo ila waa mayda moogtaa tuboyna ku jiro dhakhtarka wuxuu yiri looma geli karo waa nin maydo sarir iska saarana lagu hayo sarir dooxa dhexdeeda marka qadiijo adduunya aakhira waa kala badan tahay aakhiradaada wax la har waligaana qof mayda ha ka been sheegin injineeriso maydo waxaana qaarijiye oo dilay faadiyaasin oo irbada ku duubay waa la hayaa raggi cajiladii laga duubay isbitaalkan turkida anigu weligay ma tegin isbitaal martini anu aqaano laakiin sababta turki loogu bixiyaan ba fahmaynin isbitaalkaas cajilkii laga duubay faadiyaasin waa hanjabay fata ku xarro
maanta maalin aan ahayn meelaad harsatay markaa weyda Fahad Yaasiin oo adduunyada meel ku qariibsameeyaysid horta dhul Soomaaliyeed ma imaanaysid maxkamadna horta lagu saaraya kullina waa imaanaynaa maxkamadda lagu saari doono Fahad Yaasiin waa joogay waa taagnaana waxyaalo proofana waa keenaya Fahad Yaasiin oo taas ku sii tashaadna proof ana wadaan imaanaya aniga thank you aan leeyahay dadka aan ka gatay waa gatay lacagan ka bixiyay thank you aan leeyahay wax kalena lama sugahay maxkamadda Fahad Yaasiin la sugaya waliba inta anigu aan hayo waxa haya ankee Sheekh Shariif iyo waxa haya Xasan Sheekh Maxamuud haya marka maxay tahay waxaan ka hadlay wax laga hadla meesha ma jiraan marka taas aan leeyahay ciidamada Soomaaliyeedna in si fiican loo kala xulay noqon doontaa aad iyo aadna waa uga hadli doonaa program kasta oo leeyahay ciidanka soo dhaxgelinaya inaan ogaano exactly inay ciidan shacab yihiin oo shacabka ciidan u yihiin ciidda ay calanka Soomaaliyeed ay Soomaaliya ka difaacaan qof kasta soo weeraro shacabka Soomaaliyeed war madaxweyne hadduu isku taago inuu wadanka weeraro kuwii qaban lahaa waa militariga Soomaaliyeed marka in la ogaado waaye maxay yihiin ciidamadan maxay yihiin militarigan maxay yihiin ayagu oo farmaajo u isticmaalayo dadka oo leeyahay guri kale la soo weeraro hebel ha loo tagaa la weeraro ciidanka saas loo ma isticmaali karo adduunyada nin u isticmaali kara maaha waa militariga halka mar ay awoodda leeyihiin waxay tahay markuu isku dayo nin siyaasiga gurigiisa inuu u isticmaalo maalintaas la rabaa cagaha dhulka inay ugu dhuftaan madaxweynaha Iiraan madaxweyne kumana caayin kumana dilin nin siyaasiga waa maxad ku weeraraysaa waa soo xiraynaa maxkamadan geenaynaa laakiin maxaa ku weeraraysaa warqadana ay ka qaataan isaga ay warqadana markay qaataan ay sii gudbiyaan waraaqaha si ay ku ogaadaan inay ciidamadu dambi lahayn haddii kale waxaad noqonaysaan calooshood u shaqaystayaal wadanka iyo shacabka Soomaaliyeed ee calankaan ugu shaqaynin baad noqonaysaan oo farmaajo lacag ka qaata markay farmaajo mushaharkiinu waa ku qasban yahay international ka bixiya asaaxada saytuuga every month wala soo diraa lacagta ciidamada Soomaaliyeed dhowr gobolaana soo dirta Sacuudigaanke waa soo diraa Turkiya way dirtaa Ingiriisku waa diraa maxay tahay marka wax laga hadlahayo lacagtiina farmaajo cuna waanan ognahay dhibaatada ay qabtaan laakiin inaan kala ogaano waayo inaad ciidan Soomaaliya oo sax ah tahay iyo in aad tahay ciidan farmaajo uu ku shaqaysan karo oo in adeerka baxsoodi lagu dhahayo taas ayaa waxaan rabnaa inaan kala saarno haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed ana allaafli waa jeclahay ciidamada aadan u jeclahay dhibaatay qabaan waa ogahay laakiin dhibaatada waxa weeyaan inay iska qabtaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuuna adeegsanin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuuna dhiin hibel hala soo dilo guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur loo isticmaalay sabab maxay tahay wax loo weeraray guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur sababta qayra iyo farmaajo inay isticmaaleen mi sheegi kartaan oo u weerarteen Cabdiraxmaan Cabdishakuur maya ma ogdin weerar aan gulay waa iska weeraraysan siyaasiga waxyaalahaas oo kale ciidan ugu ma noqdo markaas oo kale waxa ku ran qoriga inaad dhigtid ciidanimada aad tiraad madaxweyne waa ka tagay ama isi shuruud aan ninka ku weeraro qalada badan baad gasheen dad ciidamada Soomaaliyeed bakay stupid baa wadatiin kulligiin ee la san qaada ciidamada adduunyada ka jirta oo guri islaamid bilaash aan ku weerari karin waan ogahay inuu qayrayni diray waan ogahay rag meed ka qaaday I know kuwi kale ka sii qaaday I know kuwi duubay laakiin maxaa ku weerarteen Cabdiraxmaan Cabdishakuur annaku waliba ciidankan ku dhaganaa waan ognahay Xasan Cali Khayriya in adeegsaday laakiin markii hore inii furneed waay Saadiq John waxa laga rabay inuu yiraahdo waay magac iyo shilin kan waa laga matajinaa maanta Saadiq John wallahi billahi inuu farmaajo wuxuu ku tareen waa laga matajinaa waliba geeda inta lagu xiray aan soo lalminaan ku leeyahay sida xalqi oo kale farmaajo wuxuu ku tarin maayo wala marka taas aan leeyahay ciidamada la iska ilaaliyo markay ciidamadu waxay baabi'iyaan shacabka masaakiinta ayay baabi'iyaan waa in laga qabtaa eedad iyo akhlaaqna dariiqyada ay u taagnaadaan ayagoona baadgaraynin dadka waalidkood la mid ah oo hooyadood iyo awowgood iyo walaashood iyo habaryartood la mid ah inayna baadgaraynin shacabka Soomaaliyeed anigu kaasaan waxaan u aqaanaa ciidan wanaagsan taasaan ku soo xirayaa ciidankan ku soo xirayaa waa ni salaamay thank you caawan is arkayna si YouTube kan waa isku arkayna saacad ka bacdi I love you and jeclay kulligiin barnaamijyada la share gareeyo please and please thank you